telefishinka qaranka kaliya ayaan daawadaan fiirsadaa meel kale kuma leexdo waana jeclahay waxaan yeelay wadani ma igu abuuran marka waxaan rabaa korokaca maanta la gaaro aan ku farxaya saas awadeed u dabdaan maxaa ka daawataa warka telefishinka warka idaacada waxaa loo baahan yahay barnaamijyo hanuunin ah oo dad shacabka maskaxdiisa wax ku abuuro oo mataqaana wadanimada waxay tahay u shaqo oo dawladda inay hal maalin adduunka soo qaban karin oo isaab maanuba ay mataqaana muxuu ahay say u qabayso la sharxa loo baahan yahay magacayga waxaa la yihahdaa cabdishakuur cadad xalane waxaan deganaa waddanka Holland runtii waxaan maanta u arkaa maalin yani wanaagsan inay tahay sababtoo oo maalintii sanad guuradii TV-ga qaranka Soomaaliyeed uu 3 sano jirsaday dabcan Soomaalida telefishinada waayaan aad ugu soo bateen oo wadamadan Yurub la joogo aad baa loogu daawadaa khaasatan waddankan Holland yani access fiican baan u leenahay TV-yada Soomaalida sanadada dambe yani soo batay TV-ga qarankana wuxuu ku jiraa kulli wanaagsan oo arko TV-yada يعني ugu warka dheer oo Soomaalida ay aad u daawato runtiina arinta yani waxyaabo badan bay naga saacideeyaan dadkan halkan Europe ku nool khaasatan Holland waayo waxa la helaa warar markaas update oo maamulba yani xaaladda waddanka jirtay sida wax u jiraan baa laga warhelaa caruurteena dabcan waxay u noqonaysaa aniga waxaan aabo 5 caruur ay joogta qaabka kaliya ay xaaladda warka ay kula waddanka ay kula socon karaan waxa kamid ah yani warbaahintan aaladda TV-ga oo ay arki karaan yani xaaladda sida wax u jiraan oo indhooda markaas wax walba ku arki karaan runtii aad baan yani arinta anaga ay wax badan noo tartay annagina ka waalid ahaan aan kula socnaa waddanka xaaladiisa caruurteena ay ku helaan yani information ilaa iyo xad waxaan jeclaan lahayd maadaama TV-ga aad daawato oo aad la socoto barnaamijyadiisa haddana sanad guuradii saddexaad ay tahay dib u howlgelinta xilliga dib loo howlgeliyay telefishinka waa lagu soo kordhin karaa ama way ka maqan tahay oo kale TV-ga wuxuu adeegaa ummadda Soomaalida oo dhan kuwa waddanka jooga kuwa ka baxsan labadina waa in la isku helaa yani adeegoodii isku hal information labadoodii ma anfacayaan aniga waxaan aaminsanahay dadka dartan qurbaha jooga khaasatan wadamadan Yurubta iyo North America iyo information u baahan inuusan la mid ahayn waddanka dadka jooga information u baahan yihiin kuwa waddanka Soomaaliya ku joogana waxay u baahan yihiin information ku saabsan Soomaalida yani qurbaha joogta iyo xaaladooda iyo sida dhibaatooyinka magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdirasaaq Aadan Cismaan Canjeex waxaan ku noolaa dalka Holland gaar ahaan magaalada Amsterdam telefishinka qaranka ay sanad guurada saddexaad waa u hambalyeynaa waxaan leenahay waa hambalyo TV-ga waa TV-ga ummadda Soomaaliyeed waa telefishinkii qaranka Soomaaliyeed marka waa u hambalyeynaa sanad guurada saddexaad anaga hadda ka qurba joog ahaan waxay noola meel joogtaa sanad guuradii 30aad maadaama TV-ga aad daawato saa sheegtay sanad guuradii saddexaadna iminka lagu jiro oo la maraayo markii dib loo aasaasay maxaad adiga ka daawataa TV-ga inta badan waxaan ka fiirsadaa akhbaaraadka maxaa yeelay dalka Soomaaliya waa dal xaaladiisa Ilaahay og yahay ee dhibaatooyin ay ka jiraan inta badan waxa aan qiimeeyaa waxay tahay inaan xogta dhabta ah amba waxyaabaha soo kordho cusub aan dalka aan la socono akhbaaraadka ayaan ka dhageystaa waxaan dhihi karaa marka waa TV-gii maaragtay qaranka oo maanta xogta rasmiga ah oo dalka gudihiisa amba waxyaabaha ka socdo aan ka heli karno waa isha kaliya oo maanta yani ummadda Soomaaliyeed ee leedahay telefishinka qaranka maxaad jeclaan lahayd in lagu soo kordhiyo telefishinka qaranka maadaama aad tahay daawadayaasha TV-ga waxaan TV-ga aan maaragtay rajaynaynaa in barnaamijyada islaamiga oo barnaamijyada diinta iyo muxaadarooyinka inuu kordhiyo si maadaama shacabkii ay yihiin dad muslim ee wax badan uga ogaadaan diinta islaamka macnaha ay xambaarsan tahay maxaa yeelay shacabkii waa shacab islaam inkastoo aysan luqadda af carabiga ku hadlin haddana inta badan Soomaalidu waa xaafid qur'aan marka in muxaadarooyinka iyo tafsiiraadka ay kordhiyaan barnaamijyada diinta taas ayaan ugu baaqayaa telefishinka tan kale Soomaali far badan ayaa qurbaha ku nool intii burburka uu ka jiray dalka dad badan ayaa soo baraka oo qurba joog ah rag iyo dumar caruur leh iyagana in barnaamij loo sameeyo oo barnaamijka qurba joogta la yiraahdo iyo barnaamijyo kale oo waxaan ka rajaynaynaa
wacyigeliyo dadka amba lagu dhiirigeliyo wadaninimada. maxaa yeelay soomaalida inta badan waa isu sheegnaa haddana xaqiiqda waxba kama qabano. in dadka lagu dhiirigeliyo inay noqdaan muwaadiniin rasmi ay u danqadaan dalkooda iyo dadkooda. waa in barnaamijyo maaragtay loo sameeyaa oo wadaninimada ku saabsan. taas ayaan iyadana maaragtay ugu baaqayaa TV-ga ummadda anigoo ka faa'iidaysanaya barnaamijkan dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waa u hambalyeynaa shacabka Soomaaliyeed iyo guulaha maaragtay dowladda Soomaaliyeed maanta ku tilaabsatay. waxaan kaloo uga hambalyeynayaa TV-ga horumarka uu sameeyey muddada uu dhisan yahay hadda. waxaan leenahay mar kale hambalyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحال محمد عمر قعل وكنا ودلك هول المقالة أمستردام مركا معناته وحا ماشا روها مليانين سنة قورد سدحاد تي في قرنكا مركا ماشا انه وحا كسلامي انه شقالها تي في وقرنكا iyo shaqaalihiisa iyo kulli hambali. السلام عليكم. magacayga waxaa la yiraahdaa Absaaq Maxamed Fiido waxaan ku magac dheerahay Dhagacade waxaan deganahay magaalada Amsterdam. waxaan aad ugu faraxsanahay telefishinka qaranka oo 3 jirsaday maadaama aan u hambalyeynayno waxaan jeclaan lahaa inuu ku siyaadiyo waxyaabaha hadda aad aan u fiirsanaa aad aan u daawana. waxaan jeclaan lahaa inuu ku siyaadiyo waxyaabo kale barnaamijyo kale oo kan si dheer inuu ku siyaadiyo marka aad ayaan ugu faraxsanahay insha Allah. maadaama TV-ga aad daawato oo dadka TV-ga ku xiran aad tahay wadankana aad joogtid Holland qurba joogna aad tahay maxaad leedahay adiga TV-ga uu ka maqan yahay oo jeclaan lahayd oo lagu soo daraa ama waa laga dhibaa. والله طبعا waxaan aad u jeclaan lahaa inuu soo daro sportiska sida Soomaalida dhalinyarada oo sportiga aad u jecel يعني sports aad loo kordhiyo taas jeclaan lahaa. okay ma santa okay adiga ma wala